sanadkii uu dastuurku ugu waajibiyay waxaana khudbadeeda laga hadlayaa warbixintii sanadka tagay iyo qorshaha xukuumadda ee sanadka cusub iyadoo aan si gaarana ugu tilmaami doono wixii xaalad daruuri ah in laga warramo. Somaliland waa qaran 23 jirsaday oo qaangaar ah. waa qaran ay dadkiisa iyo dawladdiisuba bar kasta iyo goor kastaba u soo jeedaan. 20 sanadood ay Soomaaliya jirtayna shacbi iyo dawladba Soomaaliya waxay halgan ugu jirtay dadaal ay ku xaqiijinayso qarannimadeeda, adkeynta nabadgelyada, kor u qaadida adeegyada asaasiga ee waxbarashada, caafimaadka, biyaha, horumarka kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. waxaan jecelahay inaan sanadkan warbixinteeda ku saleeyo heerka aynu ka joogno dhinacyada kala duwan ee nabadgelyada, siyaasadda iyo adeegyada bulshada. waxaa hubaala in maanta Somaliland marayso meel aan indhaha laga qarsan karin iyadoo buuxisay shuruudihii looga baahnaa. waxaase jirta in cadowga Somaliland ku hawlan yahay hagardaamooyin uu ku waxyeeleynayo himilada ummadeenna oo ah dawladnimo iyo qaran cagihiisa ku taagan oo beesha caalamka ka mid ah. warbixinta xukuumadda ballanqaadkayagii iyo barnaamijkii siyaasadeed ballanqaadyadii iyo barnaamijkii siyaasadeed fulintooda waxaan u soo kala horreysiinayaa sidii ay u kala muhiimsanaayeen ay baahida dalku ahayd isla markaana ay awoodda dhaqaale inoo saamaxaysay. nabadgelyadu waa asaaska nolosha aadamaha, waana halbowlaha dalku tamarinayo la-aanteed aanu jiri karin ama se horumar higsan karin haddii aan nabadgelyadu jirin. waa wax ilaahay loogu mahadnaqo inuu dalkeenu maanta ku sugan yahay nabadgelyo aada u heer sarreysa oo aanu ka mid nahay dalalka Afrika ugu nabadgelyada fiican. waxay nabadgelyadu ku dhisan tahay dadaalka ciidamada ammaanka, soo jeedka iyo feejignaanta bulshada, iyo tacabka iyo joogtaynta ay ciidamada qaranku ugu jiraan heeganka ilaalinta dalka iyo dadka. sida aad wada dareensan tihiin waxaa jira cadow badan oo u quuri waa iyo xiqdi dartii doonaya inay wiiqaan deganaanshaheena, dimuqraadiyadda iyo horumarka aynu ku tallaabsanay iyagoo adeegsanaya taba iyo xeelado qarsoon.